oo kamid ah qurba joogta gobolka Erar oo gacanta ku haya masjidka degmadaasi dayactirna ku sameeyay ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha iyo qurxinta masaajidda ku yaala gobolka Erar sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cabdiraxmaan Warmaal. ugaas xasan ugaas maxamed oo kamid ah qurba joogta gobolka Erar ee deegaanka Soomaalida isla markaana hormuud u ah guddiga qaadan ururinta ee madaarista degmada Xamaro iyo sidoo kale masjid jaamaca degmadaasi oo muddo qabya ayaa waxa uu socdaal ku yimid degmada Xamaro ee gobolka Erar asagoona kulamo la qaatay xulimowdiinta odayaasha iyo sidoo kale guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidkani ayagoona guddiga halkaasi ku soo bandhigay dhaqaalaha oo ku kacayo dhameystirka masjidkan oo muddo qabya ayadoona sanadkii hore la bilaabay dhismaha masjidkani. hadda masaajidka waad aragtaan wuxuu marayaa gabagabo wixii hadda harsan waxaan ku qiyaasnay ilaa 3 face baan u qiyaasnay. face koowaad waxa weeyaan bilifoonkii oo hoos yaala iyo albaabadii iyo daaqadihii oo la geliyo iyo laydhkii oo magaran muxuu ahaa lagu xiro oo qof dabyaqaan inta loo keeno laydhkiisa si fiican loo hagaajiyo. saddexda qaybood baa hadda face oo noo diyaar ah. saddexda qaybood markii magaran muxuu ahaa aan qiyaasnay lacagta ku baxaysa markaa waxaan lagu qiyaasay ilaa $10,000 bay noqonaysaa. فيسكاس marka waa sida oo degdeg oo hadda diyaar oo baahanahay waxa labayo fayska labaad ah sibirkii masaajidkan marka lagu shubi lahaa iyo magaran muxuu ahaa gogashiisa wixii magaran sibir ahaan lagu shubi lahaa oo isagana ilaa 8,000 ay ku baxayso waxa kale oo magaran saddexaya fayskii ugu dambeeyay oo ah gogasha iyo wixii yar naashnaasha ka dambeeya oo isaguna ilaa $10,000 noqonaya markii la isu wada geeyo waxay noqonaysaa $28,000 bay noqonaysaa. hadda wixii diyaar ma garan muxuu loo baahan yahay ee alaabta u taalana waxa weeyaan $10,000 baahida horta masaajidku waa taas marka waxaan ka codsanaynaa dadkii muslimiinta ah ee waliba ma garan muxsiniinta ah ee hadda ka hor wax ka geysanayay iyo kuwa cusub ee hadda ka hor aan arag inay ma garan arinta gacan naga siiyaan oo aakhir ay wax dhigtaan. walaal waxaan halkan waa masaajidkii Xamaro ee jaamica ahaa dadka muslimiinta ah caalamka meel ay joogaanba wixii ka qayb qaatay iyo wixii aan ka qayb qaadaninba waan uga ducaynaynaa kuwii ka qayb qaatay baan khaas ahaan u ducaynaynaa waxaan rabnaa inaan baahida masaajidku u leeyahay aan ka codsanno dadka muslimiinta ah meel kastaba ha joogaanay qaybaha noo dhiman halka uu joogana waa hadda aragtaan alaabta dhaxtaalana waad aragtaan waxaan u baahannahay marka cid kasta oo ka faa'iideysato aragtay inay ka faa'iideysato baahidiisana waa indhaad ku haysaan taasi waa qodob ta kale waxaan muslimiinta caalamka ku firiirsan dhammaan meel ay joogaanba masaajidka way arkaan baahida ka muuqata dariishadiisii iyo daaqadihiisii albaabadiisii iyo filqsanaanta dhaxtaala way arkaan maalin walba ariga iyo dameeraha iyo bisadaha ayaanu ka dhaxkaxaynaa waanu ku tukannaa waan isdhex taagannahay annaga iyo xoolihii iyo xawayaanka waan isdhex taagannahay kulli tabartuna halkaas inaga taagan tahay marka walaalayaal waxaan qurba joogta iyo dhalinyarada hadda dibadaha ku maqan ee gobolka Erar u dhalatay gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa masaajidka inay baartay nagala qayb qaataan wixii ay awoodooda ah. geesta kale ugaas xasan oo isna halka ka hadlay ayaa waxa uu qurba joogta iyo sidoo kale dadka muxsiniinta ah ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhameystirka masjidkani degmada Xamaro oo sida hadda aad arkaysaan uu yahay qabyo waxa dhamaan inoo wada faahfaahiyay baahida uu masaajidka uu qabo culmadii jirta maanta masaajidku u baahan yahay sida aad arkaysaan 1 iyo 2 ma joogo ma sha Allah dhalinyar badan oo maanta degmada u dhalatay gobolka Erar ayaa ka qayb qaatay ما شاء الله إلهي أجر حسناتها كسيو أنت دميستركنا واحد ذاتك اللي جسوجي وحويني دميستران الربنا وأياك ودبادة جرا يردمان أنت المسلمين دبادها تشوجبه وحلقة عدسنا يا إن فيس كان عصبي هذا الدميست ترى فيس كل بعض بقول من سيدا إنوفا فاهين وذا دقمة حمرو يا ضياشي يا ماملكي قعنتك وهي مسجدك saad arkaysaan 1 iyo 2 ma joogo waxaan leeyahay ka codsanayaa dhammaan intii hore uga qayb qaadatay waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaadha ka siiyo ilaahay wax weeyaan ha xifdiyo waan u duceynaynaa dhamaantayada geesta kale ugaaska ayaa waxa uu booqasho ku tagay dugsiga Umar bin Khadaab oo kamid ah dugsiyada ay gacanta ku haya qurba joogta gobolka Erar asagoona halkaasi warbixin kaga dhageystay maamulaha dugsigaasi
magacaygu waa daahir axmed maxamed waxaan ahay maamulaha dugsiga dugsigu aad iyo aad buu u fiican yahay maasha allah waxaan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol ugaaska oo waxaa weeye noo yimid ahna dadkii waxaa weeye dugsiga dhisay waxaa weeye halkan soo gaarsiiyey ardadu aad iyo aad bay u fiican tahay guud ahaan ardada tirada joogta hadda waa 225 arday 10 macallin iyo waxaa weeye xubin waxaa weeye waardiya shaqaalaha dugsiga xogta dugsiga waa intaas manhajka meesha lagu dhigaa dugsigu waa dugsiga Umar bin Khattab ee deegaanka ka jiray ma sha Allah aad iyo aad buu fiican yahay gudoomiyaha degmada Xamaro isna halka ka hadlay ayaa waxa uu ardayda ugu baaqay inay sii kordhiyaan culumtooda maxay yeelay maanta midhihii way hayaan midhihii iyo ujeedadii ay lacagtooda u bixinayeen bay hayaan iskuulkii wakaas uu dhisan yahay waa 6 kalaas haddana waxay diyaar u yihiin inay dugsi dhexe ku daraan oo 4 galaas halkaas laga soo jeediyo marka aad baan ugu faraxsanahay aad baan runtii u faraxsanahay maadaama anigu aan markii horeba dadkii qayb ka ahaa iskuulkan iyo bilowgiisii iyo fikirkiisii markii hore waxa la oranayay iskuul gaar loo leeyahay ama iskuul gaar ah oo Umar bin Khattab Xamaro may qaadan kartaa waxayna noqotay gobolka Erar degmada koobaad markii koobaad ardadu ay soo gashay ay 250 ilmood ay isdiiwaan galiyeen 2013 ama 2020 Cabdiraxmaan Axmed Warmal Universal TV degmada Xamaro ee gobolka Erar